قطوف البخاري. قطوف البخاري كتاب يحتوي 200 حديث منتقات من صحيح البخاري. تصنيف وأداء حسين العرموي. وحث إلى الرحمن سيرا فإننا على هذه الدنيا كحبر على ورق. وحث إلى الرحمن سيرا فإننا على هذه الدنيا كحبر على ورق. فهمت تكاليف الحياة ومن يعيش حريصا على الدنيا يعيش على أرق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال هذا دمانتين waxaan ku guda jirnay kitaabkeena Qutuuf al-Bukhari, gaar ahaan waxaan ku jirnay baab at-tahaara, baabka tahaarada ayaa aynu ku jirnay. waxaan soo gaadhnay markaa al-hadiith al-hadi wal-20, hadiiska 22aad عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. أبو هريرة وحي بخاري كورنا يا رالي الله كهذا إن رسولك قال يري عليه الصلاة والسلام: إذا شرب الكلب أي هدي عبو في إناء أحدكم midkin weelkiisa haddii wax ku cabo falyaghsilhu 7 jeer ha maydho. xadiiska waxa warinaya Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, tarjumadiisa waxa nagu soo martay xadiiskii saddexaad. al-kalbu marka la leeyahay waa xayawaanka macruufka la wada yaqaano weeye, asha ku jirtaana istiqraaqiyo weeyo waxay caam yeelaysaa ay oo dhan, ama ha noqdo kulle noo fasaxayn la adeegsan karo sida kii lagu gaarsanayay, kii xoolaha ku eegayay, kii beerta ku ilaalinayay, kii guriga dhowrayay ilaalinayay, waxaas oo dhan waa ay ku guda jiraan. kii aan laynoo ogolaynba yani waxa weeyaan wax nafci aan ku qabsanayn hadduu noqdana waa ka sii daran yahay oo meesha waa ku jiraa. macnaha guud ee xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu xooga saarayay arrimaha tahaarada iyo nadaafada. markii haddaba aygu uu noqday xayawaanada la dhibsado, xanuunada badanna dhaliya, ayaa sharcigu wuxuu amray weelka uu galo 7 jeer in la iska maydho. riwaayadka qaarkood waxa ku soo aroortay idha walagha al-kalbu, halka inaga idha shariba ay markaa noo qoran tahay. marka wuluuqaasina waa ka sii xeel dheer yahay cabitaanka, waxa weeye ay adkhala tarafa lisaanihi, carabkiisa marka uu galiyo weeye weelka, carabkiisa caaradiisa marka uu galiyo oo ku dhaqdhaqaajiyo yuna cabin be waa soo guda galaya. riwaayadka qaarkood waxa kale ku soo aroortay 7 jeer ee maydhitaanka ah mid ka mid ah in ciid la raaciyo, waxaana wanaagsan taw horeysa inay noqoto. fawaa'id xadiiska laga qaadanayo najaasada ayga in la adkeeyay qudhunnimadeeda oo daran awgeed. waxa kale oo xadiiska ku sugan in 7 jeer la maydhaa inay waajib tahay in xadiiska cadeeyay. waxa kale oo xadiiska ku sugan oo riwaayadka xadiiska qaarkood ay tusinayaan in mar ka mid ah ciid la raaciyo. waxa kale oo xadiiska laga dareemaya ciidaasi uu nasgareeyay ee uu cadeeyay xadiisku in la adeegsado, oo saabuun iyo shaambooyo iyo waxyaalahaasi ma istaagi karaan meesha ciidda oo kale. qofka helaya waa inuu ciidda adeegsadaa. iminkana waxayba sheegaan in yani waxa weeyaan bakteeriyada ku jirta ciid mooyaane wax kale ayna tagsin karin. Allahi tabaaraka wa ta'ala ogaa in ay bakteeriyadaasi meesha ku jirto ayaa sharcigan soo dejiyay. marka qofkii helaya ciidda ayuu adeegsanayaa. haddii se ciidba uu waayo si ay ku dhacdayba dee markaa shaambooga iyo saabuunta iyo waa adeegsan karaa. fattaqullaha mastata'tum, intaad awoodaysaan rabbigiin ka baqa. xadiiska 22aad can Abi Hurayra radiyallahu anhu qaal. Bukhari wuxuu warinaya Abu Hurayra Allah raali ka ahaaday inuu yiri qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam, rasuulka Allah wuxuu yiri 5 min al-fitra, 5 abuurka wanaagsan iyo islaamnimada ayay ka mid yihiin: al-khitaanu wa gudniinkii, wal istihdaadu itimaha hoose in la iska xiro, wa natfu al-ibti iyo timihii kilkilada in la guro oo la rifo, wa taqliim al-adfar iyo cidiyaha in la iska guro, wa qassu ash-sharib iyo in la gaabiyo timaha yani waxa weey shaarbaha. xadiiska waxa warinaya Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, tarjumadiisuna xadiiskii saddexaad ayay nagu soo martay. غريب حديثك الفطرة
وما جبل الناس على حسنه waxa lagu abuuray dadka inuu shay wanaagsan yahay kaas ayaa laga hadlayaa marka shayada wanaagsan ee dadka uu ku abuuran yihiin ay kamid yihiin arrimahan waxa kale fitra ay u soo aroortaa yani sunnadii anbiyada weeyana waa loo jeedaa al-khitaan waa arinta macruufka la yaqaano wiil iyo gabadhba inta la yaqaano in laga jaro weeyo gudniinkii weey al-istihdaad wa izaalatu sha'r al-aana timaha awrada ka dulbaxa in la iska tagsiyo weey natfu al-ibti wa qat'u sha'rihi min asli in asalkiisa laga gooyo oo la soo rafo weey hadii qofka ay yani xanuun iyo ay ku keenayso waa xiri karaa bay yiraahdeen culimadu taqliim al-adfar cidiyaha guristoodina waa macruuf oo inta jirka soo dhaafta in la iska gooyo weey qasu sharibna waxa loo jeedaa ma yanbutu ala shafati al-ulya dabinta sare wixii ka soo dalbaxay timaa ayaa loo jeedaa macnaha guud xadiiska uu leeyahay shariicadeen waxay kulansatay wax kasta oo wanaagsan sidoo kalena wax kasta oo quran ah ama fool xunna waa inooga digtay xadiiskana waxa ku sugan 5 arrimood oo arrimaha wanaagsan ee diinteena kamid ah 5taas arrimood qodobka ugu horeeya waa gudniinkii oo waxa laga yaabaa hadii qofka aan la gudin in najaasooyinka halka ay ugu ururaan kadibna xanuun ay ku keento cibaadadiisina ay saxmi weydo qodobka labaad ee xadiisku sheegay waxa weeye al-istihdaad timaha hoose ee xorada ka soo dalbaxa in iyagana la iska guro tahaaradii waajibka ahayd inay u dhameystirmi weydo isagana ayaa laga yaabaa hadii uu iska guri waayo sidoo kale yani waxa weeye xanuunna inay ka dhashaana waa suuragal in la iska gaabiyo shaaribka iyo waxa weeye shaarubaha ayaa qodobka saddexaad ee xadiisku uu tilmaamaya waxaana xadiista qaar ay faa'iideeyeen majuusta iyo gaalada dabka caabuda in arintaas lagu khilaafayo qodobka shanaad in la iska guro yani waxa weeye timaha ka soo baxa garabka hoostiisa ama kilkilada ayaa loo jeedaa iyaguna aan fiicnayn ayaa keenan hadii ay baxaan waxa kale oo xadiiska ku sugan cidiyihii la iska guro waxa laga yaabaa inay halka wasakhdu hoos ururto isla markaana cuntadii marka uu ku cuno uu xanuun ka dhashaan sidoo kale kamaalka tahaaradii iyo dhameystirankii tahaarada waajibka ahayd weysadii iyo inay gaari weydo oo iska gaasi uu ka manciyo iyo suuragal marka iyagana in la iska guraasana fawaa'ida xadiiska laga qaadanayo fitrada ilaahay dadka ku abuuray khayr oo dhan inay u horseedayso shar oo dhanna ay ka fogtahay ayaa xadiiska ku sugan waxa kale oo laga qaadanaya arrimahan si gaar ah looga warhayo oo aan laga qafloonin waxa kale oo ku sugan fawaa'ida ay arrimahan leeyihiin diin iyo adduunyada inay badan tahay oo yani waxa weeye qaabka iyo hay'ada qofku inuu qurux badnaato jirkiisuna nadiif ahaado dawaa waxyaalo adduunyadii qofka qurxinayo hagaajinayo tahaaradiisii ay cibaadadiisu ku ansaxaysana wax aakhiradiisii qofka hagaajinayo marka fadaa'il waa weyn ayaa ku sugan الحديث الثالث والعشرون حديث كصدح يلباتنات عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر البخاري كورني يسقي أبيه برال الله كهذا النبي يقول عليه الصلاة والسلام خالف المشركين مشركين تخلافة وفروا اللحى كركفر البدية وأحفوا الشوارب شاربهنا كابية غريب كحديثك ما تنجي بقى كل شيء جاي هنا وفروا اللحى مركل ليه أنبتوها يعني بحية ويقركي وأكثروها بدية ولا تزيدوا منها شيئا وإحنا كجويننا أحفوا مركل ليه يعني وحوي شاربها قابية خذوا منها كقبتوي أو حكا جوية حتى يبدو إلا كم موقضه طرف الشفة العليا دبنت الصريح عرف كي يقول الله كصب حيو وحديثك لا أحفوا إمك واحد تلمامسة إن كنت لقى مرة لو ضحيره لكن حديثك لا فايديسي وحوي إن يعني وحوي لقابيو عبد الله بن عمر أي حديث كورينية ترجمة دي سنوحي نقص مرتين حديث كطبناب معناها قودي حديث كوليه إسلامكم إنه كده ذالي ودي رجلي شخصية قفكو إنه نقطة متميزة وآدي آد أسر رئيسة أيام ماشا لك قادنايا خالف المشركين مشركين تخلافة مشركين تانا مجوس تالو جيدا يو حديث تكلا يعتصيصي خالف المجوس مجوس تخلافه والنبي يقول عليه الصلاة والسلام أو جهد مخالفة يقابك الله خلافة يعني النبي كورمي عليه الصلاة والسلام وحولي وفروا اللحى كالتوفير كالحيدة لشيء يعني والتكثير إلا فربضيوي وعن الحيرين فوائد حديثك وحلقة قادنايا إن حاران تاي
garhka in la xiro ama la gaagaabiyo oo la ina faray garhka in la farabadiyo oo la koriyo ayaa xadiiska ku sugan. sidoo kale xadiiska ku sugan shaarubaha in lala baxo oo la sii daayo la badiyaa iyaduna inay xaaraan tahay ee la doonayo ama in la iska wada xiro ama in yani waxa weeye la gaabiyo. waxa kale xadiiska ku sugan shareecadu inay xoogga saartay qofka muslimka muuqaalkiisa sare oo inuu qurux badnaado ay ka shaqaysay sida baatinkiisa iyo qalbigiisaba ay u daweysay. waxaan u gudbaynaa baabu salaah, halka ayaynu dahaaradii kaga baxnay, salaada baabkeygii ayaynu halkana ka guda galaynaa. الحديث الرابع والعشرون حديث كأفر لباتنات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخاري وحكورني أبو هريرة الرسول قال لو يدعى عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ضدك هدي أغان لهايين ما في النداء وحا كجرة إن صلاة اللو أدمه والصف الأول يصفك كوبا وحا كجرة هدي ضدك أغان لهايين ثم لم يجدوا كدبنا أين هلين إلا أن يستهموا عليه إني أرنتا أقر تورتان موياني لاستهموا وأقر توران لهايين. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يا حديث كورنية حديث كصدحات أي ترجمة سنة نقص مرتين. النداء وحلو جدا الأذان أدنك صلاة الله إعظامه يلو جدا مركل ليه هي يعني وحويا أن يستهموا استهامك هو الاقتراع إن يعني وحويا لقرة تورتوي معناها جود حديثك طاعة إلهي تبارك وتعالى وحي سببه تاي قفك الدرجات سرين وقالوا الدنيا آخرة أرنتان وان لو ترتمى وطاعة إلهي لو كان ديريا حديثك محمد النبي نقول عدني عليه الصلاة والسلام فضل صلاة اللي يقدمه يصفك هورين لصو حاضر إلى هاي وحنا النبي قلنا شيء عليه الصلاة والسلام أجرك كجرا أرنتاسي أنا دتك أدقوا ورقبيني هذا يسوقان لهايين ويبقوا قرطورين لهايينو أنا قال صفك هورين يعني قدمي أيابا قرطور كوكلا قادن لهايين أجرك كجرا وين ديس هذا يكور قبان بالنبي عليه الصلاة والسلام فوعد حديث كلا قادر يوم فضل صلاة اللي يقدمه iyo arrinkan shariicadu ay nagu dhiirigelisay oo ay jeclaysiisay xadiiska ku sugan. sidoo kale safka hore fadliga uu la dheeriyahay sufuufta kale ayaa xadiiska laga qaadanaya. waxa kale oo meesha laga qaadanaya xadiiska ku sugan al-ihtimaamu bi adaa'i as-salawaat al-khams, salaadaha shanta in yani waxa weeye jamaaca lagu guto oo masaajidka lagu guto qiimaha ay leedahay waayo safka hore ee qofka ku jira jamaacadii xaq hore ayuu ka galay. الحديث الخامس والعشرون حديث كشنية لباتناد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وخروح ورنيا وعبد الله بن عمر وكورنيا إنه يري بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5 إسلامك شن أيا لقول سي شهادة أن لا إله إلا الله إن لقرو إلى حق لقو عبدين نجرين الله موياني وأن محمد رسول الله نبي محمد رسولك إله إنه يهي إن لقرو تلك كوباد مركا وشهادة ذوي وإقام الصلاة صلاة إن لأوجو وترك لبعض وإيتاء الزكاة الزكاة إن لبحيه وترك الصدحة والحج يحجك إن لحجيه وترك أفراده والصوم رمضان يبشر رمضان إن الصوم وترك شهادة. حديث قال حورني عبد الله بن عمر ترجمة دي سنة حديث كتبنات أي النبي صمرت غريب كحديثك الإسلام والانقياد والخضوع إلهي له جنسمه وهو يعني وحوي ليسكد الليو وهو إلهي يعني وحوي له جنسمه يا إسلام الله يرحمه. الصلاة مركل اللي هي صلاة حق اللغة هان عربية ده دعاء اللي ورنشري لكن ده مركز شرعي كجرت وحلو شيء ده صلاة يعني قولا يفعل الله الصميم ككوبا وكبل أبانيس الله أكبر كنا دمانيس سلام النقص. زكدنا يعني أنما يو كرد أي حاجة اللغة ده يجرتي لكن ده شرعي وحلو جدا مال جونية ولا قاضي يو قفك حولها ملك سنة وحنا لقوا فافاهية كتب تفقية حج كنا مركي سهرة إن وحلو قصديو يلا قاضي لو يستعمل جري لكن شرعي قد وحلو جدا قصد بيت الله الحرام للنسك إلهي بيت كيسو كعبضة إلا آدو يضع عمال لقوا سو جدنيو. صوم رمضان صومكم مركي هره الإمساك يا الامتناع إن يعني laga reebtoonaado laga joogsado ya luqada loo isticmaali jiray laakiin deesh xagga sharciga waxa loo jeedaa inta dharaar loo yaqaano in qofku ka afxidnaado wixii shariicadu ay amartay inuu ka afxidnaado oo kutubta fiqiga lagu faahfaahiyo. macnaha guud xadiiskan xadiis عظيم oo aad u weyn weey. imaam an-Nawawi wuxuu leeyahay in hadha al-hadith asl 'azim fi ma'rifati ad-din. xadiiskani
وأصل وين ودين تقرشة ده يعني كسبان بليه ابن رجب وكله اسنوح لها إسلامك حديث كانوا يحكوش بهيبولي دسمها وكله شنطن أرمضنا وحكسوا قاضي دعائمت يتيرش وين دسمها سوق تاجيه وحلقة فهم يقولي مركع هدي تيرش عسى أي دمان قفك إسلام مديسي إن الدميسو وحلا سكوا فقسين يقولي شهادته هدي قفك أي كم قنطع يوتير كوه الرئيه تقفك عسى إسلام مدي كمجرو لكن أفرتك عليه دين تما كجبحيا مسك ما بحيو خلاف يا علماء الحدود كتاجن ابن حجر الهيتمي أي سوى نوح لها هو حديث عظيم أحد قواعد الإسلام وجوامع الأحكام وحول حديث كني وحديث وين قواعد إسلامك يعني وحوي متكمل وي أحكام تكو أصور بدنا متكمل ويان بوري مركا حديث قيمة له وعلماء السداس عيوت المامي فوائد حديث كلا قادنا يوم النبي عليه الصلاة والسلام مركوليه بني الإسلام على 5 شن أي إسلام ماذا لقول سي وحماشة كسوان قابب كدتك وحلوش يا قاب كميد إن دتك وحلو يرقي قيبيو أو تروين لوش يا وشن الرماد ويا أرن كاسمر قف كترهدي وحسوا وياه مدبم ده كدم بيسو إنه شنطة الرماد ما يسترتو قطب كلا بعد ماشة كسوان إن شيء معنويات يعني وحوي أنا موقنين وحلا طابان كرو وحلا قط صاليه يا سيدو كل حديث كله كسوان وحكوا حديث كسوان لبدا الشهادة إن استلازميان أو قفك قرا إلهي تبارك وتعالى إن عبادة حق بطي لكن نبي عليه الصلاة والسلام رسالة دي سديدة النبي نما أقر وياه مسلم نقن مايو وحكوا حديث كسوان لبدا الشهادة إن يهين أساس كإسلامك أرمها كلنا إن يجعل وضل السيو وحكوا حديث كسوان إن لقبل أبو أرمها كأمهم سن كدمنا ككلاسي مهم سن وصدا الله وضو وشنطن أرمض مركون النبي شيء عليه الصلاة والسلام شهادتين كوكو مهم سنة أيوه الرئيسي وحكوا عجزي الصلاة دي وقضب كلابات سو يستاجسوا توجو مهم سنة كدب أنت كله والشيء وحكوا حديث كسوان قف كشنطة أرمضان لقي منين وحعلمات سكوا وافقين كأوه الرئي أو شهادتين كأه إنه كو قالوا بيو لكن أنت كله خلاف أي كتاجن سيدي أنو شاقني مركا قفكو إنه خلاف كان نفتي سلدونيني شنطن أرمض وكصبحوا أي لقى قاضنيا هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيامك البرق إن برق فإن كنت ذا لب حصيف وحكمة